بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa channelkan YouTube-ka aynu ku leenahay ee xulka wararka. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe inoo saar, gambaleelkana furo si aad markaasi ula socoto waxyaabaha aan halkani idinkugu soo baahino. Markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Magacyada siyaasiyiinta caanka ah ee ku fadhiya 13 kursi ee doorashadooda la shaaciyay ee Beledweyne. Barnaamijka inta aan ku guda jirno ayaad ku daawan doontaan maxaa sababa dagaalka ciidamada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Kulana Jees Mareyxaan ee Dhuusamareeb. Iyana waan idiin soo baahin doonaa dowladda Qatar oo laba arin u balan qaaday dowladda federaalka Soomaaliya. Iyana waan idiin soo baahin doonaa ciidamo Kenyan ah oo qarax culus lagula beegtay Lamu. Xogta qaraxaasi ayaan idiin haynaa. Qodobadii nagu soo kordho ayaad barnaamijka intaan ku guda jirno ku daawan doontaan. Sidoo kale waxaan kaa codsanayaa mar kale inaad subscribe inoo saartid, muuqaalkana like gare oo share gare si aan u helno saaxiibsidaada oo kale u qalbi wanaagsan. mahadsanid qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf wayno muhiim. Markana aynu ku bilownay faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal u dhaxeeyo ciidamo kala taabacsan musharaxiinta Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo Cabdullaahi Aadan Kulana Jees oo ku sugan Dhuusamareeb. Iska hor imaadkan oo xalay ka dhacay gudaha magaalada ayaa waxaa ka hadashay dowlad goboleedka Galmudug oo digniin culus u dirtay musharaxiinta ciidamada la tegay halkaasi. Taliyaha saldhigga booliska Dhuusamareeb Gaashaale Maxamed Aadan Warsame oo la hadlay wariyaasha ayaa ka hadlay israsaaseynta dhexmarta labadan dhinac. Inkastoo uusan shaacin khasaaraha ka dhashay, balse waxa uu tilmaamay in la xiray askarta dirirtay. Gaashaale Maxamed Aadan Warsame ayaa sidoo kale xusay in dagaalku uu ka bilowday tuhun la xiriira taleefano la dhacay, balse si dhaqso ah loo xaliyay. Saraakiisha ciidamada khilaafku dhexmaray ayaa kala dhexgalay ciidamo ka wada tirsan dowladda ee shaqaaqada dhexmartay. Waxaa lagu xiray saldhigga booliska askarta bilowda foodada, ayuu yiri taliyaha saldhigga booliska ee magaalada Dhuusamareeb. Ugu dambeyntii wuxuu digniin adag u diray musharaxiinta ciidamada la tegay caasimadda Galmudug, wuxuuna tilmaamay in aan la aqbali doonin fal kasta oo dhaawacayo amniga magaaladaasi. Si kastaba, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa u tartamaya kursiga Hoob 138 halka Cabdullaahi Aadan Kulane loo xiray kursiga Hoob 40. Labada kursi ayaa waxaa doorashadooda la qaban doonaa 14 bishan February oo ku beegan Isniinta. Waxayna dad fara badani ay sugayaan natiijada beri markaasi la shaacin doono. Taliyaha saldhigga booliska Dhuusamareeb Gaashaale Maxamed Aadan Warsame oo la hadlay wariyaasha ayaa ka hadlay israsaaseynta dhexmarta labadan dhinac. Inkastoo uusan shaacin khasaaraha ka dhashay, balse waxa uu tilmaamay in la xiray askarta dirirtay. Gaashaale Maxamed Aadan Warsame ayaa sidoo kale xusay in dagaalku uu ka bilowday tuhun la xiriira taleefano la dhacay, balse si dhaqso ah loo xaliyay. Si kastaba, adiguna daawanayo yaa jeclaan lahayd in labadan kursi ay ku soo baxaan, mise jeceshahay in labadan nin ay soo wada baxaan? Qaybta hoose ee commentiga aragtidaada qurxoon inoogu dhaaf wayno muhiim. Dhanka kalena guddiga doorashada Hirshabelle ayaa soo saaray liiska kuraasta 13 kursi oo ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka federaalka, kuwaasi oo lagu dooranayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Kuraasta 13 kursi ee la shaaciyay qaarkood waxaa ku jira kuwo ay ku fadhiyaan siyaasiyiin miisaan culus ku dhexleh siyaasadda Soomaaliya, waxaana jira walwal badan oo ay ka qabaan musharaxiinta qaar oo ku aadan in loo boobo kuraasta shakhsiyaad gaar ah oo la wato. Kuraastan waxaa hore ugu fadhiyo xubno ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda xilka gaarsiinta iyo wasiirkii hore, waxaana xiiso leh in uu ku jiro kursiga ishana lagu wada hayo ee uu doonayo in uu qaato agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin oo hadda ku fadhiyo xildhibaan Faarax Sheekh Cabdulqaadir. Xildhibaanadu ku fadhiyo kuraasta la shaaciyay doorashadooda ka dhacayso Beledweyne ayaa la filayaa inay intooda badan soo laabtaan, waxayna kala yihiin Hoob 3 waxaa ku fadhiya Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Beene. Hoob 6 waxaa ku fadhiya baarlamaanka 10aad Maxamed Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi Axmed. Hoob 8 waxaa xilligan ku fadhiya Dr. Xuseen Cabdi Cilmi. Hoob 15 waxaa ku fadhiya baarlamaanka 10aad
xiis xasan aadan hoob 22 waxaa ku fadhiya cismaan maxamed cabdi daalo hoob 31 waxaa ku fadhiya baarlamaanka tobnaad yuusuf xuseen axmed hoob 32 waxaa ku fadhiya baarlamaanka tobnaad khaliif cumar hoob 68 waxaa ku fadhiya baarlamaanka tobnaad faadumo faarax ibraahim hoob 74 waxaa ku fadhiyay baarlamaanka tobnaad cabdulaahi colaad rooble hoob 86 waxaa ku fadhiyay faarax sheekh cabdulqaadir hoob 109 waxaa ku fadhiyay baarlamaanka tobnaad cabdilfataax qaasim maxamuud hoob 252 waxaa hadda ku fadhiya cabdilcasiis saalax armaan hoob 274 waxaa ku fadhiya baarlamaanka tobnaad maxamed cabdilaahi xuseen maamulka hirshabeelle ayaa noqonaya maamulkii labaad ee shaaciyay doorashada kuraasta taala deegaan doorashooyinka golaha shacabka waxaana maamulkii ugu horeeyay noqday koonfur galbeed oo Baraabo ku qabtay doorashada 13 kursi waxaana la filayaa in maalmaha soo socda la qabto doorashada 13 kursi ay shaacisay guddiga doorashooyinka Hirshabeelle. dhinaca kalena haddii aynu eegnana madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa maanta shir gudoomiyay kulanka golaha wada tashiga Hirshabeelle kaas oo ka qabsoomay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Madaxweynaha ayaa wasiirka amniga guddiga ka dhageystay qorshaha sugidda ee ammaanka loogu shaqeynayo howlgalka ka dhanka ah harkada Al-Shabaab ee hay'adda ammaanka ay qorsheynayaanba. Shirka golaha wasiirada ee maanta ayaa looga hadlayaa arrimaha amniga gaar ahaan xasilinta magaalada Beledweyne iyo abaaraha baahsan ee ka jira deegaanada Hirshabeelle. Madaxweynaha ayaa wasiirka amniga guddiga ka dhageystay qorshaha sugidda ee ammaanka loogu shaqeynayo howlgalka ka dhanka ah harkada Al-Shabaab ee hay'adda ammaanka ay qorsheynayaanba. Shirka golaha xukuumadda ayaa sidoo kale looga hadlayaa abaaraha ka jira deegaanada Hirshabeelle iyadoo goluhu la wadaagayo madaxweynaha baaxadda ay gaarsiisan tahay abaarta xilligan ka jirta gobolka Hiiraan waxayna tilmaameen in ay deegaano badan ay ka jirto biyo la'aan baahsan. Madaxweynaha ayaa wasaaradda maaliyadda dib u heshiisiinta biyaha howlaha guud iyo shaqada arrimaha bulshada ka dhageystay mashaariicda taagan xilligan ee u baahan in si degdeg ah loo fuliyo. Madaxweynaha ayaa wasiirka amniga guddiga ka dhageystay qorshaha sugidda ee ammaanka loogu shaqeynayo howlgalka ka dhanka ah harkada Al-Shabaab ee hay'adda ammaanka ay qorsheynayaanba. Ugu dambeyntii madaxweynaha ayaa sheegay in xilligan ay jirto abaar xooggan deegaanada qaarna looga barakacayo biyo la'aan waxaana tilmaamay in deegaanada abaarta ka jirta la gaarsiin doono biyo dhaamin iyo gargaar degdeg ah. ugu dambeyntii aad baan kaaga mahadcelinayaa daawashada muuqaalkan. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe noo saar, muuqaalka like gare oo share gare si aan u helno saaxiib sidaada oo kale u qalbi wanaagsan. Haddii aad hore noola joogtana daawade aad baan kuugu mahadcelinayaa, balse daawade inta laga gaaray muuqaalkan kiisa xig Rabbi idinkiina nabadgeliyo.